Dhaqamadii ummadii hore waxaa jiray khuraafaad badan ay ka aaminsanaayeen xiddigaha samada markii ay qaab dhibco ah iskugu xidhaan xiddigaha, iyagoona ka aaminsanaa waxyaabo diini ah oo khuraafaad u badnaa. Waxaana ka mid ahaa khuraafaadkii Giriiggii hore iyo Masaaridii. Haddaba markii uu bini'aadamku horumariyey cilmiga sayniska iyo xiddigaynta, waxaa sahlanaaday in waxyaabo badan lagu ogaado hababka xiddigaha iyo meerayaashu u shaqeeyaan, taasoo ay qayb weyn ay ka qaadatay tiknoolajiyadda waayaheena. Orion wuxuu ahaa dagaalyahan lagu sheegay khuraafaadkii hore ee Giriigga ayaa ka dhex muuqanaya suunkiisa samada oo ah saddexdan xiddigood ee isku xigxiga, waxayna caan ku yihiin magacyada Alnitab, Alnilam iyo Mintaka, waana magacyo asal ahaan ka soo jeeda Carabiga. Iyo sidoo kale laba xiddigood oo ka hooseeya suunka iyo laba kale oo ka sarreeya suunka ayaa sameynaya muuqaalka jirka Orion, halka xiddigaha kale ay muujinayaan gacanta uu lulayo iyo gaashaanka. Waxaana si fiican loogu arki karaa xilliga jiilaalka cirka ee ku beegan bilaha Febraayo iyo Abriil, oo ah habeen cad oo cirku uu yahay mid aan wax daruur ah aan lahayn. Waana fursadaha ugu fiican ee lagu fiirsan karo boosaska Orion. garabka bidix ee ugaarsadaha waxaad ku arkaysaa xiddig aad u weyn oo midabka oranjiga ah leh, waxaana la yiraahdaa Betelgeuse, kaasoo ku dhow dhamaadka noloshiisa. maadaama xiddigaha huruudiga ah ay yihiin kuwa da'da ah ee cimri dhamaadkoodu marayo, sida xiddigaha badankoodu gaaraan dhamaadka way koraan si ay u noqoto xiddig weyn oo dusha sare ka qabow, iyadoona noqoto ugu dambeyn mid casaan ah. sawirkani ku muuqdo waxaa qaaday Hubble Space Telescope ee hay'adda NASA. waxa uu muujinayaa meel jawi aad u weyn leh oo daahsoon oo si fiican uu ugu ifayo iftiinka ultravioletka. xiddigani weyn ee aan la rumaysan karin ee noogu muuqda dhibic yar masaafada uu noo jiro awgeed ayaa qarxi kara daqiiqad kasta oo hadda ah. runtiina waxay qaadataa si ay noo soo gaarto xiddigtani 160 sano oo iftiin sanadeed ah. mana ogaan karno goorta ay dhici doonto, kaliya inay dhawaan dhici doonto ama malaayiinta sano ee soo socota. taasina alla kaliya ayaa og ay abuuray. laakiin marka ay dhacdo waxa loogu yeeray supernova ama xiddiga qarxa, waxa uu ka sarreyn doonaa dayaxa cirka. calaamadeynta suunka Orion qaybta hoose waxaad kaloo ku arkaysaa xiddig kale oo aad u weyn oo buluug caddaan ah, waxaana loo yaqaanaa Rigel, waana mid aad u dhalaalaya. sidoo kale halka dhexe ee suunka ka hooseysa haddaad ku fiiriso telescope yar waxaad indhahaaga ku arki doontaa xiddiga ururka Nebula oo ah daruurka ifaysa meel bannaan. iftiinkaasi oo ay ka heshay tamarta xiddigaha kulul. waxaad qaybta hoose ee bidix u raacdaa suunka Orion si aad u hesho buluug caddaan xigeenka Sirius oo ah xiddiga ugu iftiinka badan samada habeenkii. ayaa noqonaya midka ugu dhow dhulka, waxa uuna qaadanayaa safar ah 9 iftiin sanadeed. sidoo kale qaybta hoose ee bidix waxaad ku arki doontaa wax kaa yaabin doona, waana waxa loo yaqaano Canis Major. markii qaab dhibco ah la iskugu xiro xiddigahani ayaa waxay ula muuqan jirtay dadkii hore sidii wax u eg ay weyn oo samada dhex taagan. Canis Major oo ah xiddigaha ugu dhow Orionka ayaa u jira masaafo dhan 8.6 sannadood oo iftiin sanadeed ah, isagoona leh xiddiga badan oo cufan oo aad uga hooseeya xiddigaha la yiraahdo M41 oo ka kooban 100,000 oo xiddigood, kuwaasi oo ay ka samaysmeen daruuro gaasas iyo boorar ah. dhinaca kale ee bidix ee Sirius waxaad ka helaysaa xiddiga kale oo waaweyn oo aadna u iftiimaya iftiinka jaalaha ah oo loo yaqaano Procyon, waana qayb ka mid ah xiddigaha Caniska yar ama eega yar oo ah wehelka labaad ee Orion.
sidoo kale Procyon, Sirius iyo Betelgeuse waxay sameeyaan qaab geometry ah oo la yiraahdo saddex xagalka jiilaalka. mowduucina maanta intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum.